waxaan ku jiraa xilli adag waxaa jira abaaro waxaa jira roob la'aan waxaa jira xaaluf marka ugu horeysa ilaahay gacantiisa baan ugu filaan karaysa inaan xagga ilaahay u cararo oo ilaahay weydiisano culayska maanta na saaran inuu naga qaado dariiqooyin bay leedahay loo maro oy kow ka tahay in ilaahay la baryo baryada ilaahay waxay tahay in marka hore la soomo ka bacdina salaad loo dhanyahay oo roobdoona la tukado taasaa sunno ah arrinta nebi maxamed inoo jideeyey ee isaga aan kaga dayanayna waa middaas marka bal horta marka hore ilaahay aynu isaga barino cid kastoo kaloon maanta iyagoo u gudbisanno taa ilaahay baa inooga hela jawaab dhaqso badan wax kastoo cid kale ina soo gaadhsana waxba inooma tarayso intaa marka la samaynayo waxaa ka horaysa in la iscafiyo oo dadka niyaddoodu isu furan tahay sababtoo ah iyagoo shixna iyo caloolxumo iyo cugdad la isu qabo dacwada ilaahay la baryaya laftirkeedu ma helayso dariiqeeda markaa bal horta in la iscafiyo marka hore marka labaadna aan ku baaqayo in salaad la tukado 3 maalmood in la soomo kadibna salaadii roobdoontahay bannaanka dadka ay isugu soo baxaan ay ku tukadaan ilaahayna ay weydiistaan waxaan intaa ku darayaa abaaraha dhacaya asbaab bay leeyihiin haddaad waddanka maanta dib ugu noqoto dhulkii aad taqaanay marxalado badan oo waxaa jira sabab u noqonaya waxa maanta dhacaya dhulkii shalay aad dooxada ku ogeyd ee biyo fadhiisidka ahaa oo daaqsin xooluhu ay ka helayeen oo waraw ay ka helayeen oo beero laga tabcanaya maanta waa faraqyo kanaalaa ka jeexan oo biyihiisa u socdaa webiga ku soo shubaya webiguna baddu ku dara taasi waa waxa ugu horeeya ceelasha la qodayo iyo waxa la samaynayo dhan waxaa ka muhiimsan biyo celisyo iyo biyaha in la xidho webiga ku darsamayo badda ku darsamayo biyo xidheelna iyo biyo celisyo la sameeyo dhulkii daaqsinta ahaa bal siduu ahaa loo soo waxay qodobka labaad ee caqabadaha keenta waxaa ka mid a ceelal iyo waro meelba laga qodayo waxaan ugu hormarsanayaa barnaamijka aan furitaankiisa u soo istaagay tanaa culayskeeda le iyada laftirkeeda haddaad dib ugu noqoto gobolkan aynu maanta joogno jubbada hoose ceelal xoolaad oo dad ka cabbi jirin baa waxay safan yihiin halkan iyo ilaa dhoobley 2 ceeloo walba waxay isu jiraan 30 kilomitir iyo qaar 40 kilomitir isu jira sababtu maxay ahayd xoolaha ka cabbayey magaalooyin mayna ahayn dad looma dhisaynin waraha markaad fiiriso 40 kilomitir ilaa 70 kilomitir bay waruhu isu jiraan wara magacyada baa jira waro meelay magacyo ku lahaayeen waraha hebla waa la yaqaanay maanta waxaa caqabad noqotay waxa intaa loo kala fogeynaya waxay ahayd in daaqsinta iyo dawda la kala saaro macnihii sabada xooluhu ka cabbayaan iyo daaqsintu inay laba kala noqdaan maanta 5 kilomitirba war baa ku taala 10 kilomitirba ceel baa laga qoday qadaraas lagu soo helay maxay abuurtay markaa labadii sabo ama labadii daw ee xoolahaasi ka cabbayeen baa isfuulay daaqsin u dhaxayso daaqayaan ma jirto idan waxaa baaba'ay xaabkii iyo wixii xooluhu cuni lahaayeen waxaan marar badan ka digay waraha badan ee la qodayo laakiin mushkiladdu waxay noqotay markaad qof la hadasho waxaa la leeyahay anaa la ii jeedaayo wartaa la ii diidan yahay warihiina uma aha waddankii xal haddaan doonayna inaan abaartuna sii soconno daaqsintana aan helno waxay noqonaysaa wara badan oo la qoday in la aaso oo boolasigii dowladdii ay lahaan jirtay ee dawda iyo la kala saaraya daaqsinta inaan dib ugu noqonno haddii kale abaartan iyo xaalufkani sidaas uu jiraya
maaha maanta xooluhu inay biyo la'aan la baaba'een abaartu waxa ay keentay biyaha booyadaha lagu dhaamiyaa oo baabuur baa u geyn karta laakiin caqabadda maanta ka muhiimsan waxay tahay ka culus xaab ma jiro daaqsin ma jirto geedihii way qalaleen caws ma jiro dhulkii wada dow buu noqday waxaan is leeyahay anuu sababta koowaad ee aan u eersanayna waxa maanta sii dhacayahay waa wax innagu aan gacanteena ku samayno aan u soo noqonno marka bal inaan deegaankeena dib ugu noqono